wasiiru dowlihii wasaaradda cadaaladda ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Khaliif Muumin isla markaasna kamid ahaa xildhibaanada maamulkaasi ayaa maanta cudurka COVID-19 waxa uu geeriyooday magaalada Muqdisho. geerida wasiirkaasi waxa Hon Cable TV uga waramay oo u xaqiijay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda ee Hirshabeelle Cabdiqaadir Cismaan Baar oo khadka telefoonka igu waramay. walaal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaal Khaliif Muumin Tooxow oo ah wasiirka cadaaladda Hirshabeelle oo ahaa nin aad isku dhownahay oo isla shaqeynay muddo badan la hal sano oo kalaan wasaaradda joognay Allah una xariisamada taariikhdiisa ayaa intaas ku ekeed wuxuuna ku Muqdisho maalmaha wuxuu ku jiray xaaladda uu ku jiray Allah una xariista Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada firdawsna ka waraabi. Khaliif Muumin da'diisa wasiir ilaa intaad ku qiyaas karaysay ama waxa Khaliif exactly uma waqti waqti laakiin wuxuu ahaa lixdameeyada ayuu ahaa nin aad usoo shaqeeyo dawladda dhexe iyo soo jiray ahaa waana nin aqoon leh oo khibrad leh oo dalka iyo dadka wax badan ka soo qabtay waxa xanuunkan ma intii uu gudaha joogay ayuu ku dhacay mise dalka dabadiisa ayuu ka yimi wasiiru dowluhu Khaliif waayahan dabo Soomaali u dhamaa laakiin bishii October ayuu baxay oo aaday London xanuun oo neefaha iyo ayaa hayay halkaas uu iskaga soo daaweeyay dabayaaqadii December sanadkii tagay ayuu yimid oo xamar yimid Soomaali ku soo laabtay January ilaa uu ku sugnaay Soomaali ku sugnaay gaar ahaan Hirshabeelle muddo yar oo xamar ku maqnaay oo bishii hadda la soo dhaafay Maarch aan ka ahayn marka de kullay maadaama wasiir ahaa shirka golaha wasiirada ayuu idila gelayay dadka ayuu ku dhex jiray arrimahaas iyaga baaritaan ma ku samayseen xaqiiqatan haddii sida saxda ay tahay oo ninkaasi cudurka la sheegay positive-ka haddii run ay tahay oo sida hadda wasaaradda caafimaadka federaalka ay ku xaqiijisay ay tahay Khaliif wuxuu ahaa nin xildhibaan ah oo Hirshabeelle ka tirsan golaha baarlamaanka fadhiyadeeda oo kasoo qaybgalay dadku la tacaamulay dadka u waloolay oo ahaa miisaaniyadda sanadkan 24 sanadka bishii hadda la soo dhaafay la siiyay golaha wasiirada fadhiyadooda uu kasoo qaybgalay xafiiska aan aniga si ka wada shaqeynay xafiisyada wasaaradda uu ka tirsanay xafiis gooni u lahayo wasaaradda kala shaqeeyo wuxuu ka shaqeynayay arrimo badan oo isku dhow xabbu socodka maamulka wasaaradda ayuu ka shaqeynayay shirar badan aan galnay rag badan oo la degnay hotelka rag badan ayaa soo booqanay xanuunkiisa rag badan ayaa caafimaadka dhaqaatiir ah korjoog u ahaa ma yara saameyn haddii la yiraahdo kolley ilaahay subhanahu wa ta'ala intaas ha ku ekay haddii ay waxay maadana kolley waa khatar waa jiri kartaa ma garata marka saacad wasiir adoo raaliya markii wasaaradda caafimaadku ay maalmihii dhaweed xaqiijisay in wasiirku uu cudurkan qabo idinku ma bilowdeen ama dawladda federaalka idinku kaashanaya wax baaritaan oo ku saabsan dadkii uu la kulmay iyo arrimaha ku saabsan wallahi xaqiiqatan sideedii bisha ayaa la geeyay Khaliif xamar la geeyay jimcihii la soo dhaafiyo 10 bisha ayay sheegeen in positive uu yahay dadka Khaliif la shaqeeyay ama lagu tuhunsan yahay inay la falgaleen ayaa dad badan weeyaan baarlamaanka oo idila kamid ah wasiirada idila kamid ah ilaa dhowr boqol qof
hadda dadkaas oo idil hadda kama wada silnaan karaan in baaritaan la mariyo baaritaankana waa qofkii laga shaqeeyay ayaa la aadi karaa laakiin dadka hadda kulli wax aan dhihi karno hawshaas ninkaas ayaa saameeyaan dhihi karna ma jirto kolley karantiin dadka waa jiraan nin walba asaga si gooni shakhsiyan oo isu karantiilay socodka hadda ma jiro marka kolley wixii soo baxa waa sugaynaa dowladda federaalkana hadda inay nagala shaqaysiyo howlahaas qabatana waa jirtaa wixii hadda culays oo naga ziyaadana insha Allah annaga waa la wadaagi doonaa insha Allah سعادة وزير iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo khadka telefoonka igu waramayay